Kadib markii ay cuntay tufaaxii samaysnaa, dhulka ayay ku dhacday. Waxay u ekeyd inay mar dambe soo kici doonin. Laakiin midda la yaab kale ayaa waxay ahayd waa ay soo kacday. Indhaha ayay soo kala furtay. Waxay soo kacday ayadoo daalan. Kadib waxa ay dhahday aad ayaan u daalanahay, talow yaa i keenay halkan. Waxay socotay cabaar, waxay fiirisay hareeraheeda. Kadib waxa ay ku baraarugtay inuuna jirin qof agteeda u dhow. Waxay fiirisay korkeeda waxa ahaa buur aad u weyn. Hoosteeda ayay fiirisay waxa ahaa biyo. Kadib waa ay soo socotay waxa ayna ku qaylisay yaa i caawin kara. Waxay cabaar socotay ayaa waxa ay maqashay cod heesaya oo aad u macaan. Kadib waa ay soo raacday codkii. Waxa ay aragtay ugu dambeyn gabar heesaysa. Waxa ayna ku fadhisay geed korkiisa. Gabadhi ayay u wacday waxa ayna ku dhahday waxaan ahay meeshaan gabar ku nuursan. Waxa igu dambeysay anigoo tufaax cunay dhulka ayaana ku dhacay. Ma ii sheegi kartaa meeshaan waxa ay tahay? Waxa ay ku dhahday waxa aad joogtaa caalamka riyooyinka. Ku soo dhawow. Anigu waxa aan ahay boqorad. Waxaa la rabay inaan ku noolaado nolol aad u fiican. Waana ku noolaa nolol qurxan ilaa ay ka dhimatay hooyaday. Kadib aabbahay waxa uu guursaday islaan kale. Kadib asaga ayaa dhintay. Waxaa ii soo hartay islaanta uu qabay aabbahay. Waxaana isku dayday inay dhibaatayso. Waayo waxa ay ka masayri jirtay quruxdayda. Halkan ayaana ku soo kacay aniga oo jooga. Gabadha kale ayaa waxa ay tiri tani waa noloshayda sidaadoo kale. Waxaa anigana dhibka ii geystay aabbahay islaanta uu qabay. Waxa ayna ka masayri jirtay quruxdayda ilaa aan ka imaado halkan. Kadib waxay dhahday meeshaan aan joogno waxay u qaybsantaa 3 meelood. Buurta aadka u korayso waa buur aad u dheer. In la korana aad ayay u adag tahay. Kadib waxaa ka koreeya albaabka looga bixi lahaa meesha riyooyinka. Albaabkan haddii aad ka baxdo waad ka wada baxaysaa riyadan. Waxaa ka hooseeya intaba dhulka hoostiisa biyo maro. Qofkii ku dhaca biyahaasayto dambe uma soo kaco oo riyadiisa ayuu ku dhex dhintaa. Waxa meeshaan aan joognana waa meesha u dhexaysa riyada iyo soo joogta. Anaga ayaana dhex joogna hadeertaan. Waxaan ku weydiinayaa ma israaci karnaa? Waa inaan ka baxnaa meeshaan waayo 2 qof ayaan nahay. Haddii aan iskaashanno waan ka bixi karnaa. Waayo meeshaan aad ayay khatar u tahay inaan waaga noogu baryo ilaa waan ku dhiman karnaa. Haddii aan kala diir sameynana waxaan nolosheena halis geli karta. Isnawaad waxay dhahday waa inaan u dagaalamnaa nolosheena. Kadib waxa ay ka fikireen sida ay ku bixi lahaayeen. Inateen baxnay. Labada amiiro waa ay soo baxeen. Waxa ayna soo mareen waddo aad ciriiri u ah oo marta dhanka buurta. Waxa ayna ku siganayeen inay ka dhacaan buurta. Geeska buurta waxaa ahaa dabeel aad u badan. Qofkii ka dhacana ma noolaan karin. Way nagu adag tahay meeshaan inaan marno. Talow sideen ku mari doonaa? Isnawaad saaxiibkeedii socotay ayaa hal mar waxaa u fakaday dhagaxii. Kadib waxa ay bilowday inay fiiriso hoosteeda ilaa ay ka dhacdo. Balse isnawaad ayaa ka daba tagtay gacanteeda ayayna qabatay. Waxa ayna ku dhahday soo fuul aniga ayaa ku haynayo. Laakiin waxa ay saaxiibteed ku dhahday waa inaad idaysaa aniga. Waayo labadeena ayaa isla dhiman doona. Isnawaad way ka madax adeegtay wayna diiday inay sii dayso saaxiibteed gacanteeda. Waxayna dhahday haddii aan dhimanayno isla dhimanaynaa. Gacanteeda ayay xoog u soo qabatay ilaa ay ka soo saartay meeshii. Kadib waxaa burburay dhagxaantii waddada ay ku imaadeen. Hadda uma suurtagali karta inay laabtaan. Waayo dhagxiinta ay soo mareen ayaa burburtay. Waxa ayna go'aansadeen inay hortooda ka socdaan ilaa ay ka soo gaareen meesha daruuraha badneed. Waxa ayna u muuqatay albaabkii. Waa ay farxeen kadib waxa ay soo gaareen albaabka dhankiisa. Markaan waxay soo gaareen albaabkii. Waxay isdhaheen fura balse awood aad u weyn ayaa soo riixday. Waxa ayna u dhaceen gadaal. Albaabka ayaa la hadlay waxa uuna ku dhahay waxaad hambali waxaad tihiin gabdho geesi ah. Balse albaabkan waxaa soo geli doona hal qof oo idinkiin ka mid ah. Waa inaad kala doorataan labadiina. Kadib isnawaad ayaa dhahday saaxiibteed ku dhahday waa inaad adiga baxdaa. Waayo waxaad leedahay reer adiga kaa fikiraayo. Balse aniga haddaan noqdo waxaan u noqon doonaa eedadeydii. Kadib waa ay dhibaateyn doontaa. Saaxiibteed ayaa ku dhahday waa yahay balse hal mar ma isiin kartaa hab. Waxa ay bilaabeen inay hab isa siiyaan. Kadib waxay bilaabeen inay ismacsalaameyaan macsalaameyntoodii ugu dambeysay. Markay hab siisay ayaa saaxiibteed waxa ay samaysay inay isnawaad ku riddo albaabkii. Kadib isnawaad ayaa albaabka ka gashay. Waxayna dhahday macsalaamo. Way ismacsalaameyeen.
Snow White ayaa soo kacday, waxa ayna tuftay tufaaxii. Waxa ay ku soo kacday 2 wiil oo gaagaaban oo horteeda jooga. Waa ay boodboodayeen, waxa ayna ku faraxsanaayeen soo noqoshadeeda. Kadib askartii boqorka waxa ay bilaabeen inay xiraan eedadii arxanleyda ahayd. Kadib markii eedadii arxanleyda ay Snow White aragtay, waa ay argagaxday. Kadib waxaa ku dhacay wadnihii ayaa istaagay, dhulka ayayna ku dhacday. Snow White waxa ay ku soo noqotay nolosheedii dabiiciga ahayd. Kadib waxa ay ku fikiraysay saaxiibteedii. Waxa ayna weydiisay dadka qasriga joogay dhammaantood iyo shaqaalihii inay yaqaanaan boqortooyadii ay magaceeda sheegaysay. Ma ayna helin qof hela magaceeda ilaa ay ka weydiisay 7 gaagaabnaa mid ka mid ah. Waxa ayna ku dhahday ma aqaantaa. Waxa uu ku dhahay muraayadda ay ka dhimatay eedada ayaa laga yaabaa in ay haysay utur. Kadib Snow White muraayadda ayaa u imaaday. Waxa ayna ku dhahday muraayaddii quruxda badneed ii sheeg halka ay joogto saaxiibtii. Kadib muraayadda ayaa dhaqaaqday. Waxa ayna dhahday saaxiibtaa waxay joogtaa dhul aad u fog. Waxa ayna ku jirtaa hurdo aad u dheer, mana soo kici doonto. Haddii aad u baahan tahay inaad soo kiciso, waa inay heshaa dhunkasho qofkay jeceshahay ah. Waxayna dhahday jacaylkeeda dhabta ah waa amiir la dhaho Philip. Waxay dhahday si fiican iigu sheeg marka haddii kale waxaan ku amri doonaa in lagu jajabiyo. Waxay dhahday xanaaqin waxaan ku tusi doonaa sawirkeeda. Kadib waxay u soo bandhigtay ayada saaxiibteed oo hurdo. Waxayna ku dhahday amiir Philip waa inuu soo kiciyaa ilaa uu ka dhunkado ma soo kici doonto. Waxaana ugu soo jiraa wadadeedii. Waxaad isku daydaa inaad adiga caawiso. Kadib Snow White aad ayay ugu faraxday warkii. Waxa ayna soo aaday muraayadda gadaasheeda oo ay ku arkaysay maro. Maradii ayay gadaasha ku xiratay waana soo baxday. Waxay u imaaday amiirkii Philip. Waxay ku dhahday waa inaad i raacdaa waayo waxaan u baahanahay inaad dhunkato amiiradda si ay u soo kacdo. Waxa uu dhahay yaa ku baray magaceeda, yaana ku baray amiiradda Aurora. Snow White waxa ay ku dhahday waxa ay baray saaxiibtii. Waxaana ku kulannay iyadu waa saaxiibtii. Waxaana ku kulannay hurdada. Waxay dhahday inaad i rumaysato lagama yaabo, balse waa inaad aniga i soo raacdaa. Waxay ii tahay aad ayay muhiim iigu tahay. Waa inaan helaa saaxiibtii. Waa uu yaabay asaga. Waxa uuna dhahay kol hore ayaan u tagi lahaa ayadan, balse waxaa jira dragon aad u weyn. Kadib waxa uu bilaabaa markii loo soo dhawaado inuu afkiisa ka soo bixiyo dab aad u badan. Dadka dhanna waa ay ka cararaan. Waxaa ku dhintay amiiro badan. Anigana markii aan u dhawaaday ayaan isaga soo cararay. Snow White aad ayay u fikiraysay. Kadib waxa ay dhahday waa inaan ku caawiyaa si aan dragonkaas uga soo argudano amiiraddana aan u soo badbaadino. Waxay isa soo raaceen. Kadib waxay soo qaateen faraskoodii. Waxay soo gaareen xilli saq dhexe ah qasrigii ay ku degneyd Aurora. Snow White iyo amiirkii waxa ay soo galeen meeshii. Geeda badan ayaa ku hareereysnaa. Kadib waxaa imaaday dragonkii. Waxa uuna ku soo degay dhulka, balse amiir Philip ayaa u soo baxsaday seeftiisii. Markii uu soo tufay holaci ayaa waxa uu bilaabay inuu gacantiisa isaga dhigo, balse waxa la yaabka ahayd ma uu ku dhibaatoonin. Waxay bilaabeen inay isdagaalaan. amiir Philip kadib waa laga adkaaday. Waxa uuna ku soo dhacay dhulka. Waxaa isku soo haray dragonkii iyo Snow White. Kadib waxa uu bilaabay Snow White inuu ku afuufo dabkii, laakiin amiirka ayaa isaga dhigay maradii ay garbaha ku wadatay. Waxa ay ahayd maro aanan karaynin dabka. Kadib waxaa ku dhacay dragonkii ayaa yaabay. Amiirkii iyo ayadana waxa ay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan maradii. Wuxuuna ku xirtay dhabarkiisa. Kadib waxa uu bilaabay inuu la dagaalamo dragonkii. Waxay cabaar isdagaalaan. Waxaa ku qarisay bus, laakiin lama arkaynin ilaa uu ka dilo waa uuna ka takhalusay dragonkii. Kadib waxa ay soo gaareen boqortooyadii qalcada u dhisneed. Waxayna fureen boqortooyadii. Kadib waxa ay soo gaareen firaashka ay ku jiiftay Aurora. Snow White iyo amiirkii waxay bilaabeen inuu dhunkado. Kadib waa ay soo kacday Aurora. Indhaha ayayna soo kaftay. Marka ay soo kacday amiir Philip ayaa soo fadhiisiyey. Waxaa dib isugu laabtay Snow White iyo saaxiibteedii Aurora. Kadib amiir Philip iyo Snow White iyo Aurora way isku fursadeen. Waxa ay ku noolaadeen nolol